dabcan qof kasta oo nool wuxuu doonayaa isbeddel inuu sameeyo in badan uma suurto gasho si kasta ay isugu dayaan sababtoo ah ma raacin waddadii saxda ahayd ama ma doonayaan wixii ay ku jireen dabcan qof kasta oo nool wuxuu doonayaa isbeddel inuu sameeyo in badan uma suurto gasho si kasta ay isugu dayaan sababtoo ah ma raacin waddadii saxda ahayd ama ma doonayaan wixii ay ku jireen inay ka baxaan sidii ay u helaan natiijo kale dad badan waxay naftooda u akhriyaan liis dheer oo ay ku jiraan waxyaabaha ay rabaan inay sameeyaan ama noqdaan ama ay helaan haddana waxa ay ku dambeeyaan jahwareer sababtoo ah waxay rabaan in hal mar si dhaqsi ah ay guulo waaweyn u gaadhaan caado ama dhaqamo yaryar oo qofka si joogto ah u sameeya maalin kasta ayaa u hoggaamin kara guul halkaana maanta waxaan idinkula wadaagaynaa tusaalooyin yaryar oo kuu horseedi kara inaad guul gaarto haddaad si joogto ah u samayso tuko salaada subax wakhtigeeda sidoo kale markaa ugu horeysa ee aad hurdada ka toosto u mahad eli Allah subxaanahu wa ta'ala ku siiyey farxad kale oo nolol ah qor wixii howl ah oo aad rabto inaad maalinka qabato oo kala hormari sida ay u kala mudan yihiin u socod si kalsooni leh u dhaqan si degan u hadal si tartiib ah laakiin fasiixa oo la fahmi karo ku salaanta islaamka qof kasta oo ka soo horbaxa garo ama hagaran habee oo isku hagaaji hoygaaga kala ciyaarsanaantu waxay keentaa jahwareer iyo qaabdaro unta isku dheelitiran muhiimadu ma aha wax badan ee waxa ka sii nafaqo badan shay yar oo energy iyo caafimaad qaba cabbiyo badan maalin kasta سميع جميع سجوكتا ويران صدن دقيقة مالين كستا أخري بوك مقال أما الدعوة كدير جليا وحين كوه قامين دونتا ودذي كوشا كفوغو وحكستا أو نيجاتيفا أما ديبكو ديجايا برأينا دمي أران كرتيد وحي آندان كوغوشرين هوري أيا لو يري حابدان إيو حي فضود هلاك بيكو هرسيدان haniyad jabin naftaada hana qiyeenin in qof ku liido ama hoos ku dhigo qof kasta waa gaar alle ayuu leeyahay xilli kasta ayaynu noloshiisu isbedeli kartaa hel hurdo kugu filan habeen kasta samee ficil wanaagsan oo naxariis leh caawi qofka u baahan bixi sadaqo xaq dhowr dariska xushmee dadka arabkaaga ber ku celinta dikriga Allah subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiiso ku shukri oo raac waxa uu ku faray kana fogow wixii uu ka reebay laga yaabee inaad rabto wax badan oo noloshaada isbeddel ku sameeya laakiin dhoobid ama dib u haweyn been ah oo wax fiican loo ekaysiiyey ma aha wax shaqeeya mana jirto guul si dhaqso ah hal mar loo gaaro wax kasta waxay u baahan yihiin dadaal dheeri ah shaqo adag dulqaad horay u socosho iyo si joogto ah u samayso ficilo yaryar oo dhaqamo wanaagsan leh